iigad iyo AU-da iyo United Nations kuba wayna la kulmeen saa xukuumadda oo la kulmeen waxaan u sheegnay annagu in xuduudaha jira caalami ah cid keligeed xuduud bedeli kartaa unilaterally adduunka kama dhacdo dal yidhaahda ama tiraahda annagu xuduudkayga waanu durkino halkaasaan u gaarsiinay unilateralism baa la meel kama shaqeyso cid kaliya u shaqeysay waxa weeye ruushkii Crimea qabsaday Puntland inaanay ruush ahayn baan filaya annaguna aanaanu kuraaynahay marka taawaan u sheegnay waxa kale oo u sheegnay annagu wadaanu nahay Somaliland axzaabta iyo xukuumadda iyo shacab weynuhu wuxuu ku baaqay nabad arrintan intii lagu soo dhameeyay dhinaca kale laga mahayaan ku nidhi nimanka u ergeynaysa inay leedihiin la hadla waa nimanka taagan dagaalku waa jihaad ee masaajidada ka hadlaya marka annagu saasaan u sheegnay waxaan u sheegnay inaan mowqifka xukuumadda aanu ku daba taaganahay iyo shacabigaba tukraqna waa dalkeenii xuduudku naga shisheeyaa waxa noo qoran oo naga go'an inaan xuduudka gaadhno laakiin waxaan doonaynaa sifo salmi ah oo degan oo walaaltinimo ah oo annaga iyo dadkii deegaanka degana ilaahay ku abuuray iska laha dhulka annagoo wada soconayna xuduudka gaadhno iyagu si taamo ogola sidaasaan u sheegnay waxaan horta bal marka hore iyaga wax ka soo dhaadhicisaan war xoogna wax ku heli maysaan xuduud caalami ah oo labadiinuba dhaxasheen dhinac kaliya ma bedelo intuu habeen seexda ma oranayo halkaasaan jeclaysan xuduudkayga gaarsiiyo adduunku ma ogola